aniga hilkaygiye horta ma hay waqtira horta ma aqoon jacayl horta nolol ma lahay horta ma aqoon jacayl horta nolol ma lahay horta layma qaybin jirin horta layma dooni jirin horta haybad ma lahayn heedun baa igu jirte horta hebel ma lahayn horta hebel ma lahayn horta layma qaybin jirin horta layma dooni jirin horta haybad ma lahayn heedun baa igu jirte horta hebel ma lahayn horta hebel ma lahayn markaan ku helaan anigu ubaal dib u soo dhasho horta uma haysan jirin inaan horumar gaari karo horta waxuma lahayn hankana adiga korsho farxadii kaamay horreeyey farxadii kaamay horreeyey nasiibka waa u jeedin sidoo yahay farxadda gurigeena dib ayay ugu soo laabatay wax walbana hadda ayaa indhiiri ku arkaysan idinkana dabaaldegiina iska dhammaystirtaa maxaa u istaagteenne dabaaldegiina iska dhammaystay idinka waa idin jeedaaye laba walaalo way faraxsan yihiin famil ahaana u dabaaldegaysaan maaho iqaadiga maxaa ku hadlowsaan iga aamusnaaya naxariistaan beenbeentaa uma baahni teeda kale dhammaantiin waa bilowdeen gabar kale guriga inay ka dhalto soo maahanne anigoo dhan waa iska kay fogayseen soo maaha adinkii imaba xisaabsanidiin waa bilowdeen teeda kale gurigan waxaa laga sameeyaa wax walba oo gurigayga lagu baabi'in karo reerka layga qabo wax lagu baabi'in karaa samaysi mid kaleeto aa idin hayo aqbaar qurux badan ah hambalihii gurigaas waa layga soo buriyey maxaa u naxdeen maxaa idinku dhacayn idinkoo dhan maxaa u naxdeen ayay qalad miskalaha way saxan yihiin maxaa yeelay wiilkooda ayaa xabsi laga geeyey weliba gabadha guriga laga qabo walaasheedaa geysay weliba bilaa sabab taas macquul miya bilaa sabab ma tirin adig kaalmo ogid naaya iga aamusaan ku dhahay bes wax walbo adiga dartaada ayay ku dhaceen waan hubaa aniga waxaanoo dhan nicmad ayaa ka dambayso nicmad ayaa haarliin ku qasabtay waxaan dhan inay samayso ayadaa sababteeda iska leh ii sheeg haarliin nicmad soo kaama codsanina midaan yaa nicmad soo kuma dhihin advid jeelka geey nicmad soo kuma dhihin advid arooskiina saxaafadda u sheeg ayada soo kuma dhihinne hadalaa ku dhahay ayada soo kuguma qasbinna jaceylkaaga inaad ka tagto naas naa iga tag waa ogahay nicmad waxaan dhan waxaa u samaynaysa waxaa rabtaa advid inaad ka taqluusto oo aa eegam la noolaato waan ku ogahay naas adiga runta advid maba taqaanidbo war asaga haarliin inuu dilo isku dayo weliba inuu gubo xakaa qaldan nasiib wanaag nimcad ayaa badbaadaysa haarliin haddii kale meeshaan ayay ku guban lehed wax walbana way isku dhammaan lahaayeen alfid nimcad waxaan ka sheeg isma dhehaynin waxaanoo dhan dhacaayana waa run aniga mid ayaan la yaabanahay adiga goormee aaminaysaa runtan ii sheeg idhagaysa inantaydii walaashaa garab inaadsiisid ayaa loo baahan yahay xilligan adigana baleeg ninkaas xun ayaad garab siinaysaa maxaa kugu dhacay aniga advid garab ma siinooy aniga familkayga ayaan garab siinayaa familka layga qabaan garab siinayaa ninkaygu wuu ii jecel yahay anna waan jeclahay ma rabo labadan dartooda qoyskayga inuu iiga baaba'o
maya inantaydi noloshaada iyo guurkaaga midna waxba ku dhici maayo dhammaanteen adiga ayaan kula jirnaa naas hawlwelna adiga ayay waxay kuu sheegaysaa waa runteed ninkii aad ayuu kuu jecel yahay adiga waxbana ma kaa halaabayaan wax walbana way kuu hagaageen maadaama si ku jecel yahay hadduu wax samayn karo ilaa hadduu wax samayn lahaa asaga aabihiisa waxba ma fahansiin karo ma fahanteen nin kale asaga gurigaas wuxuu ka samayn kara ma laha adiga fiir bes iga joojiyaan ku dhahay maala yacniga iga jooji nin kale adiga ayaa dirdiray waxaana go'aan ku gaartay nin kale gurigiisa inaad ku dirto midda saasoo dhici karta hooy ii sheeg aabina naas guriga ka buriyo adigana aa hadlin hooy anigu waxaa yaran nasna iska raaco war adiga waay afukaataa canugayga jaalkaas inuu ku sii jira anay uma dulqaada karayo berritaba waa in aad soo bixisaa warkayga ma fahamtay yah hantadaan ku yidhi garsoora laalusi wuxuu raba u samay alxaasil cunugayga bannaanka waa in la keenaa adiga maxaa kuugu dhacayna fiiri bal aabbaha siduu u walwalsan yahay walaalkaa noloshiisa uma walwalaysid miyaane naagtaada le maa ka walwalsan tahay labadan gabdho gurigayga say u soo galeen anigoo dhan way iqasan iyo wiilashayda iyo odagayga ma dhaafaayo laakiin harliin si fiican ii dhageysaan ku dhaho oo jasmiin waa la hadle dacwadan waa la laabanaysaa la laaba dhaqsaa ku dhaha la laabanaaya awoowe gabadhii sidee kaa noqotana waa maxay waxa ku hadlaysid aniga waxaa rabaa ninkaygii gurigayga inaa ku laabtaa rabaa xal kale maa ii bannaanne waddooyinka maa keligay ku lugaynayaa marka gabadheeda maxaa hadalkaas u dhehaysaana annagoo dhan adiga ayaan kula jirnaa garabkaaga ayaan nahay aniga hataa uma baahni gurigaas in aa u laabatid gurigaas dhibaato badan ayaa kala kulantay maalintii nimcad hataa ma ogeenoo xaaladda adiga aa maraysa marka gabadheeda dib uma laabanaysa aniga ayaa ila joogaysaa laakiin aniga gurigaygii ninkaygina la noolaadaa rabaa ninkayga waa jeclaa asna wuu ii jecel yahay familkaygaa rabaa inaa la noolaado nicmadoo kale miihii oo maantao dhan nolosheeda iyo guurkeeda baabiinayso horta runtaa waxay tahay gabadha guriga laga qabo wax walba inay ku saxan tahay saasee taa waxaa ila wanaagsan rubi hadalku uu sheegaa in la qaato gabadha ma aha gurigaas inay aado inay iska joogta ayaa fiicanteeda ahaan haa inantaydii yaa ku guri keligaa baa tahay ii sheeg gurigan gurigaaga weeyaan annagoo dhanna adiga ayaana leh isdeji markaa naas ninkil aaduu kuu jeclay oo aan hubaa teeda kaleeto waqti sii asaga haddii aa waqti siiso annagana aanana sii joogta asaga hubaaluu kuu soo laabanayaa gabadheeda si fiican ii dhegaysa alfiid qaladkan asaga ayaa galay qof walbuu qalad galana ciqaabtiisa waa inuu maraa adigana looma baano waxyaabaha qaar aad ku hadlaysa waa runtaada meeshaas waa adiga gurigaaga laakiin runta sideedaba in la qariyo ma habboono wax walba asaga oo sameeyana ciqaabteeda waa inuu maraa adigana isku day wax walba in aad caddaysa ninkaas siduu ciqaabtiisa ku maro waxaan ku dhaaranaa labadii nabi inaan idin dhammeeyo gabdhayga aniga aad ayaan ii jeclahay idinkan inaa walwashiin uma baahnay in wax walban waqtigooda ayay iska dhammaanayaan awoowe adiga mar kasta annaga waana ogaataa mahadsanid maantay jawgoo dhan wuu naga qaldamay awoowe laakiin berri wax walba way saxmaayaan dabaaldegga nimcad iyo eeka meeshaasay ku wada kulmaayaan dhibaatadana halkaas ayay ku iloobi doonaan gabadheedii qalbigaaga wuxuu kuu sheegayaa iska nitiraysaa gabadheedii wax walba aniga waan ogahay awoowe waxaasoo dhan ma jiraan mideeda kale ma og tahay nimcad iyo eeka markii aan isku arko markaas ayaan farxad helayaa mideeda kale waxaan aniga markii hore awoow aanan lahayn maxay ta sababtaan u lahaanayana waxaan ku ducaysanayoo keliya awoowe nimcad inay oggolaato eekamna uu oggolaado gabadheeda ka soo qad nimcad way oggolaatay riinikaana ka waran iyada ma laga yaaba inay oggolaato awoowe waxyaalahaasa isku shidaynin
nolosha isteeb waaye aroosadda hadday oggolaatay arooskana wax walba wuu oggolaanaya wuxuu diidayana ma lahan mideeda kalena eedda anigaa qancinaayo mas-uuliyaddaasna aniga isaarantaa soo sidaas ma awoowe waayahay hadda beri diyaar ma u tahay awoowe diyaar waaye eekamay nimcad aniga waddadooda ma istaagahay waxaan rabaa labadooda in ay isku farxaan oo mar walbana ay isla jiraan bis awoowe labadooda way farxayaan beri toole waayahay gabadheeda waan soo laabanaa aniga farantigaan ku geliyo waxaad ogaataa waa nicmad darteed nicmad ayaa balan ka qaaday nicmad balantaas haddii aan ka qaadin lan waxaad ogaataa gabar kale kama warrami lahayn aniga wax kaloo aan rabo ma lahan eekam waxaan rabaa farxaddaada sana samayso somaha kaalay waa noo taala aniga adiga habi hooli kuma dhaafay ku yidhi awooddaad intaas may noqota aabbo maxaa kugu dhacay intaba joogayso meedhayn maxaa la aamusanta maanta waa hoolii maxkamaddana way xirantaha aabba aniga waan cabur mooya yaakhay meeshan kuma jiri karo guddoomiyaan ahay marka meeshaan dhan ku jiro maba ahaba see waa yaakhay nicmad jacaylkayga anigu waan ku kalsoonahay maalin waxaa la gaari doonaa adigana aad ku kalsoonaan doonto weliba lugahaaga ayaad iigu imanaysaa मेरा इश्क तू है सब यार तू है दरिया भी तू है मझधार तू है मेरी सुबह शाम मेरी रात रात हर लम्हे का हकदार तू है ओ रे पिया मेरी सुबह शाम मेरी waan arki doonaa goorta rinjiga igu shubi doontid waan ku sugayaa midaas marnaba ma dhacayso qof kale ayaa xaq ku leh मेरा इश्क तू है सब यार तू है दरिया भी तू है मझधार तू है मेरी सुबह शाम मेरी रात रात हर लम्हे
maalmaheen hooliga anaga ha ku raaxaysano labada fanaan ee weyna ayaa maanta noo imaadeen si sharaf leh anaga waa inaan soo dhaweynaa marka soo dhawaada fanaaniinteena happy holy waa waree meesha si saa'ida loo qorxiye adiga goornaa soo ma tihid adigana sarjam filmaan badan aan igu fiirsaday yaaqee heerka raalli ah waxaan rabaa hal gaba inaan ku tuuro marka ma ku tuuri karaa dabcan maxaa diidaayo anaga dareenkeena waxaad ugataan kontarool haba yaraatee ma lahan balse waxa kuu qoran mar walba adiga ma gafaysid haddeertaana waxaan ii leeyahay happy holy waaw way qanciye ninkaygana sidaadoo kaleeto waay uu heesaa laakiin maanta xalfadaan joognaa noo heesna oo ku baryaay रुद्दा जावण इश्क तेरा ना जावे मैं ततड़ी जिस गल तो पजा मुड़ मुड़ आन सतावे तेरे बाजों चढ़ी हुई लोर कोई ना दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना तेरे तो प्यारा सानू होर कोई ना दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना wiilkay waxba ha cabsanin jaas waa lii 12 saacadood ayaa sii dacwadu waa inay la laabtaan hadday la laaban waayaan 12 saac kadib aniga shaqadayda bilaabee harliin adiga ku aawo gabadheeda taleefanka iga qabo ama aqaan hadeertaan maxaan sameeyaa maalin walba dhibaato cusub leh waaye hadeertaan asaga maxay jeelka u gelisay yaaqay harliin waa hubaal agfid wax uu sameeyaa asaga harliin dhibaato dad ha u geysata laakiin ayadoon laga khaldaneen dad wax ma ku samaynayso laakiin asaga muxuu ku sameeyaa harliin xaggee ku sugan tahay wax walba waa inaan ogaadaa gabdhaheegana shaamsheer iyo agfid waa inaan ka dheereeya ma rabo gabdhahayga dhibaato inay iga gaarsiiyaan sida ugu dhaqsiyaha badanna harliin waa inaan ku arkaa darawal dhaqso waan daahsana anigee mudana kabuur dhegaysan naag yahay 12 saacadood ayaan ku siiyey marka 10 saacadood ah ka soo wareegtay 2 saacadood ah ku natiijada inaad i gaarsiisid ha igu kalifin aniga mideeda kale ha iloobin qofka maanta oo dhan aad la soo hadlaysid jasmin inay tahay jawaabta macna daradana iga jooji warkaagani waxa dhadhan oo agtayda ka leeyahay mala wiilkay jaal ayuu ku jiriyaa inaan jaal ka soo saarana wax walba boo samayn kartaa wariyaa maxaad samayn kartaa ii sheeg mid kale ayaan kuu sheegayaa xaggayga haddii loo fiiriyo adiga agtayda waxaad ka tahay ma lahan jaas aniga aabba ayaa nahay
aabbana wiilkiisa ama canugiisa hadduu dhib ku jiro halistiisa ayuu leeyahay hayloobin adigana hooyo inaan ahay gabadheeda inaan badbaadiyana wax walba ayaan u samaynayaa aniga caddeemankaaga oo dhan waan hayaa adiga iyo cunugaaga xunkaa waxyaalaha aad samayseen fitaaci diijuu sheekadoodii maad iila timiday ani xabsi haddii aan galo ogow adigana shilkaas dhinacaaga waad ka gashay xabsigan waa ila gelay labadayna waa xabsigan gelayna shaamsheer waan ka xumahay waan hubaa shil weyn ayaa dhacay shaamsheer hadallada micnadarada aniga maba igu soo dhiiran karo waxaa isku qaldan harriin marka ugu horraysa waa inaan la kulmo aniga نعمد أكم أرلي سدحدينا بويلكي ما انت خلطت كقشان سدحدينا وبالله وحاول واحد ما ندري